moogtahay waxaa ku dhacaya qofka marka uu dhinto ee uu gala qabriga ka hor intaynaan bilaabin ku sali nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale ha iloobina like saarta muuqaalka naguna soo biirta si aad wax badan faa'iido qofka waxa uu imaanaya laba malag oo lagu kala magacaabo munkar iyo nakiir kadibna waxay weydiinayaan su'aalo waxayna ku oranayaan waa kuma rabbiga wuxuu ku jawaabayaa kii mu'minka ah rabbigay waa ilaahay kadibna waxay weydiinayaan diintaadu waa tee wuxuuna oranayaa diintaydu waa islaam ugu dambeyntii waxay weydiinayaan kuma ayuu ahaa nabigii laydin soo diray wuxuuna oranayaa qofka mu'minka ahi wuxuu ahaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kadibna samad ayaa laga dhawaaqayaa addoonkaygu run buu sheegay udhiga furaashka ahlu jannaha una geliya dharka ahlu jannaha uguna fura albaab ka mid albaabada jannada midkii kaafirka ahaa miyaa waxay weydiinayaan waa kuma rabbiga wuxuuna ku jawaabayaa ma garanayo haddana waxay weydiinayaan diintaadu waa tee wuxuuna dhahayaa sidiisi la mida ma garanayo kadibna waxay weydiinayaan nebiga sallallahu alayhi wasallam isla sidii ayuuna ku jawaabayaa kadibna samada ayaa laga dhawaaqayaa been ayuu sheegay udhiga furaash naara una geliya dhar naara waxaanad albaab uga furtaan albaab ka mid albaabada naarta ilaahay ayaan ka magangelaynaa cadaabka naarta iyo kan qabriga labadaba haddaba daawade adiga su-aal haddii aan ku weydiiyo hore mau maqashay qaybta kommentiga hoose iigu sheeg ha iloobin inaad falow noo saarto youtube-ka iyo facebookka profilka saaranna aad subscribe dhahdo